Maryan Cabdulla Maxamed iyo Maxamuud Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Rake oo dhulalkooda ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka cabanaya dhulboob xooggan oo ay ku hayaan shakhsiyaad ay sheegeen inay rabaan in si sharci darro ah ay ugu xoogaan dhulkooda. Dhulalkaas oo qayb ka mid ah ay beero yihiin qaarna ay deegaan yihiin. Dhibane Maryan Cabdulla Maxamed iyo Maxamuud Xuseen oo ahaa qurba joog hadda dalka dib ugu soo laabtay ayaa soo bandhigay dukumiintiyada dhulalkooda laga boobayo iyagoona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ka codsaday cadaalad. Waxaa dhacday in awood takrifal la ii adeegsanayo ninka xukuma booliiska gabar dhahaysa abtiyu ii yahay awood ay ku cabiratay waxaa ii saxiixay leedahay ninkii aniga dhulka ii cabiray ee shaacir ah waxaan ku xirnay saacadan la taagan yahay saldhigga Afgooy damaanadan banaanka ku jooga maanta 3 maalmood aniga odagaygo 94 sano jiro subaxii aan tagnaa sidii dad dambi galay maqribkii damaanadna lagu soo daaya waa soomannahay ilaahay dartiisa aan soomannahay maxamed abikar abroon al dhaha ingiriis afkiisu ka cadeey cid aan goofkiisa aniga ahayn aan sharciyeynin sharciyeeya ahaa goofka waxaa dhul ku lahaa nin la yiraahdo cali aadan ugaas maxamuud xuseen maxamed oo ku magac dheer Rake ninka gooflahay iyo aniga aa wada degan ingiriis oo dhul ku leh cali dhulkiisi waa gatay shalay ugu dambeys waxaa leeyahay leeyahay nin mareexana dhulkan iska leh beertana xoogan kaaga qaadayna cali hadduu codkayga maqlaayo meel kasto adduunka ka jooga jarmalu jooga la yiri waxaan rabaa inuu ka soo hadlay dhulkiisa waa gatay cadeento ku gatana waan hayaa dhul cali meesha uma yaalo dhulkayga ana iska leh dokumentiyan u haystaa injineerka wuxuu si naqshadeedii gacanta ay ku haystaa wax warqad ay haysata male sharci haddoo jiro maxkamadda inay ila soo korto waa la ii diiday waa la afduubay waa la ii xiray shaatigaasana la ii adeegsanaa dowladda waxaan ka codsanayaa in cadaalad hadday jirto in xaqaygii dhulkayga waan haystaa nabadgelyo aan helo كنت كمسان ويسنا درس كأوقف لا أو عدول أو مركو حنك عسينا حكم داعدة محكمة مجد وحن نقل الدمجة متر قدر عمرة أو ولا لك أنت أسكو عرني صدق عن نودب كانس مركز سوحرني ور ما يصير أدوك دبد وقدم كوا كعرتين أنا كأقوم حياتها مركز سوحري أديك الله بكوان الأواجر تكوان كريون حياتها الله بكوان مركز كوان كيلب كإيا كوان كأو ملاقي مواجر تها كوان كدت كيمليو محيتها كوان كدت كماشي أنت عن تاوير أديك العائلة دي كشب واير محكمة دي شرعي أنا جا أرديني هدي أنا اللي كوان كدت كواي تعال مدحوينه أنت مسلمة أنت إسلامة ودعونا كونفور قلبات nama qabato umadana ma qabato. Dhinaca kale duqowda deegaanka Lafoole iyo ceelasha biyaha ayaa cod dheer ku sheegay in aysan diyaar u ahayn dulmi oo kamid ah waxyaabaha uu Allah xarimay sidaas darteedna ay uga digayaan dadka sheeganaya in ay u soo tafaxiitaan boobka dhulalka dadka waxayna sheegeen in Maryan Cabdulla Maxamed iyo Maxamuud Xuseen Maxamuud ay dhulkan leeyihiin waxaan dadka deegaanka ceelasha biyaha degan Arbacow waxaa micnaha cabasho aan ka nahay dad oo micnaha shaati dawladda soo gashtay oo rabaan inay dadka dhacaan gabadhan walaasheen ah Maryan Cabdulla dhulkeeda ida iskale waa dhul ilaa siyaad bar intuu joogo 88 ay iska leeyahay waaye marka anaga hadii dadka ceelasha biyaha deegaanka aan nahay oo Arbacow aan nahay waxaan cadeynaynaa inay dhulkeeda ida leedahay oo la dulmaayo dadka la boobaayo oo sharci beenaad in la soo sameesto la boobaayo wixii ka yimaado dad wixii waa dhamaaday maxamed siyaad markuu joogay beeraha muraha ku yaala wasiir loo ibari jiray xalaa caleeg haddana waa dhamaatay tii ayaa soo laabatay hana laga gaaro halaga soo gaaro deegaanka oo la foolo oo ceelasha biyaha dib ayaa ka soo socdo aniga sultaan ka soo jeedo ceelasha biyaha waxaa la rabaa meeshan ummadaan in la kala badbaadiyo haddii oo saan la isku fiirsado oo ninkiiba shaati soo gashto oo rabo inuu dad islaameed dhulkoodii yacni gabar oo abti u yahay iyo wiil oo adeer u yahay iyo dhulka ay rabaa inay saas ku qaataan ma socohayso dhulkan waa heraa dhulkan qofka la baxaayo qofkii mashaati loo geliyo qofkii la magacaabo waa baxaa laakiin waxa heraayo dhulka iyo dadka waa heraayaan ugu dambeyn Safiyo Cabdullaahi Maxamed ayaa ugu baaqday dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda in ay wax ka qabtaan boobka ka dhanka ah dhulkooda property-na qofka yimaado waan iska dhicineynaa fartoon si fiican dhagaaga uma ku galo
propertykeena haddaad timaadid oo dhibaato ka yimaado adaa mas-uulka ah maxkamad kuuma sharciyeenin maxkamad aad beeso ku qaadatay aa wax ku sharciyeysatay haddaad wadatid waraaqad oo daacad ah oo dhulka aad leedahay la imow maxkamadda anagana diyaaraan u lanahay inaan kaa garbaxno dacwada walaashay aad mar kasta ku soo oogaysid ayada maadan dacweynin ayadaa ku dacweysay bilaa micnaana ku xirtay fartuun haddaad dhulka aad leedahay sharci soo mar haddaadan dhulka aadan lahayn aad leedahayna shaar dowladeed wax ku qaadanaya shaar dowladeed waxba kuma qaadanaysid way dhammaatay musuqmaasuq way dhammaatay tuugnimo maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo cabdicasiis waxaan u sheegayaa dadkan dhibaatada lagu haayo haddaan laga soo faragelinin meesha dhibaato ay imaanayso